waxaa jiri jiray wiil dhalinyaro ah oo seeflabood ah waxaana lagu magacaabi jiray Ayuub iyo macalinkiisa Xalane oo ahaa nin xigmad badan. Macallin Xalane waxa uu amray Ayuub in uu keeno koob ay nus cusba ah iyo nus biyo isku qasan ay ku jiraan dabadeedna uu cabo. Ayuub markii hal mar uu ka baday ayuu yiri macallin lama cabi karo dhanaanka awgeed. Macallin Xalane waxa uu amray in isla koobkii cusbada ku jirtay uu ku daro wabi meesha ku yiilay isla markaana wabiga biyo uu ka soo darsado haddana cabo. Macallin Xalane ayaa Ayuub weydiiyey dhadhanka biyuhu soo darsaday. Ayuub wuxuu ku jawaabay aad buu u macaan yahay, dhadhan cusbo laguma arko. Macallinka ayaa Ayuub ku yiri wiilkaygiyo maxaa kaa dhigay koob, maxaad u noqon weyday wabi? Wiilkii Ayuub ahaa ayaa fahmay xigmadda meesha ku jirtay. Marka waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed, koob ha noqonina ee noqda wabi.